Ninka leh sifooyinkan haweeney kasta ayaa raadiso. Haddii aad rabtid inaad noqoto nin ay haweeney kasta jeclaan lahayd inay hesho, waa kuwaan tilmaamo uu leeyahay ninka wanaagsan. Meel ku qoro oo noqo kan ay dumarka raadinayaan. 1. Dhegaysiga. Waa inuu noqdaa mid ay qusayso aragtideeda, fikirkeeda iyo sheekooyinkeeda. Haweeneyda waxay rabtaa nin ay isku furfuri karto oo leh dareen saaxiibtinimo. 2. Degganaanta. Waa inuu yaqaanaa marka loo baahan yahay inuu carabkiisa dib u celiyo si uu uga hortago inay xaaladda faraha ka sii baxdo marka uu muran labada lamaane dhex maro ama ay xaaska caraysan tahay oo ay ku jirto dareen aanan wanaagsanayn. 3. Isgaadhsiinta. Waa inuu yaqaanaa faa'iidada ay leedahay isgaadhsiinta weji ka weji iyo tan taleefanka. Baro sida loogala socdo taleefanka xaaladeeda si aad ugala sheekaysato iyo si aad kelinimada uga ilaaliso markaad ka maqan tahay. 4. Hoggaaminta. Waa inuu bixiyaa jiho. Halka ay u socdaan lamaane ahaan iyo qoys ahaan. Waa inuu leeyahay kalsooni, aragti iyo hoggaamin. 5. Daacadda. Waa inuu muujiyaa jacayl iyo daacadnimo. Waa inuu noqdaa mid daacad u ah xaaskiisa iyo guurkiisa isla markaasna uu ka fogaadaa khiyaanada. 6. Kalgacaylka. Waa inuu kalgacayl u muujiyaa xaaskiisa haddii ay carruur badan u dhashay iyo haddii kaleba. Tusi inay kugu weyn tahay, ammaan oo faani, farxad geli qalbigeeda oo ula dhaqan sidii boqorad. 7. Xooji kalsoonida. Waa in ninka xaaskiisa uu ka dhigaa mid aad ugu kalsoon nafteeda, daaqada ka saara shakiga ay qabto, hoos u dhiga cabsida ay qabto, xusuusiya qofka ay tahay marka ay hilmaamto, sare u qaada niyadeeda marka ay niyad jab dareento, dareensiiya inay qurxan tahay marka aysan sidaas dareensanayn. 8. Garab istaaga. Waa inuu noqdaa mid garab istaaga xaaskiisa marka ay garab iyo gacal u baahan tahay sababtoo ah waa isaga keliya qofkay u soo ordayso isla markaana isku halaynayso. Ogow waxaa tahay garabka koowaad ee xaaskaaga ee noqo qof ay isku halayn karto. 9. Daryeelida. Haddii ay shaqaysato oo lacag inta uu qaato ka badan ay qaadato iyo haddii kale, waa inuu kaalin weyn ka qaataa la kulanka baahiyaha qoyska isla markaana uu bixiyaa biilasha, lacagta waxbarashada carruurta iyo qarashaadka kale ee loogu talagalay adeegyada aasaasiga ah. 10. Dhiirigelinta. Waa inuu noqdaa nin dhiirigeliya xaaskiisa isla markaana ku yidhaahda, waan kugu kalsoonahay macanto. Waad samayn kartaa waxaan iyo waxaas. Waa inuu sidoo kale noqdaa mid gacan ka geysta horumarkeeda kuna caawiya waxbarasho iyo shaqo wax alaale oo faa'iido leh oo ay samaynayso. 11. Nabadda. Waa inuu noqdaa nin nabad sameeye ah oo og sida loo dejiyo xiisadda isla markaana looga fogaado dhibaato, dagaal iyo wax kasta oo xaaladda uga dari kara.